asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad dunida ka joogtaan aad baan idin salaameynaa halkaad naga daawanaysaan waa Hattrick Official. hadday tahay markaa kugu horeysay aad soo booqato channelka fadlan subscribe saar like share comment fiican naga dhixisay markaas aan ugu dhiirino in barnaamijyo aad u qurux badan idin soo diyaarino. haddaba daawadayaal waxaan rabaa muuqaalkan inaan ugu hadlo maalmahan waxaa la isla dhexmarayaa baraha bulshada cod ay soo duubtay gabar ka oo sheegaya in markaasi Shiinaha ay u adeegsanayaan coronavirus ka faafintiisa wax waliba oo iyagu teknolojiya ah oo iyaga haystaan. haddaba waxaan rabaa in aan markaasi ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed inaan markaasi aan niyada u dejino oo codkaasina aysan markaasi rumaysan. annaga waxaan nahay dad islaam ah waxaan u baahanahay in aan aamino diinteena waxaa lana faray waxyaabo fara badan inaan markaasi uga hortagno waxaana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo soo dejiyay kitaab sidoo kale wuxuu noo soo diray rasuul markaasi annaga aan ku dayano rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo dhaafay dardaaran fara badan rasuulka sallallahu alayhi wasallam ducooyin fara badan ayaa markaasi inoo tilmaamay markii ay marxaladahan oo kale ay jiraan. haddaba waxaan rabaa marka hore inaan dhageysano codka ay soo dirtay gabadha kuna sheegayso Shiinaha inay markaasi wax waliba u sameynayaan sida cudurkaasi u faafi lahaa. xitaa waxay sheegtay in markaasi caruurta laga celiyo taleefanada. marka waxaan u baahanahay shay kasta horta waa aaminaad taxadirkana wuu fiican yahay laakiin annaga waxaan nahay dad islaam ah ma nihin dad si fudud lagu soo weerari kara. marka waxaan u baahanahay inaan videogan aan ku lafagurno ugu horeen gabadha waxay sheegayso kadibna aan tala isiino. balse marka hore ila dhageyso codka ay soo duubtay gabadha kuna sharxaysay sida ay Shiinaha u faafinayaan ama ay u bilaabeen inay u faafiyaan cudurka coronavirus. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan Soomaali weyn ee meel kasta aad joogtiin dalka iyo dibadaba waxaa soo ifbaxay cudurkii ay dhahayeen coronavirus ayaa waxa ay bilaabeen Chinese-ka inay ku xiraan computer any country hadalkiisa Soomaaliya ugu xirayaan Kenyaati hadalkiisa ay ku xirayaan naag waxay ku xirayaan ama hooyo leh ama walaal leh ama assalaamu calaykum leh kugu kor hindhisayso way ku soo wacayaan kadibna meesha ay ku soo gudbinayaan walaalayaal wallahi waa xaqiiq dhacday oo luqba waaye wax beenbeena ma ahan iska ilaaliya ciyaalkiina u sheega taleefana aysan aqoonin yeysan wicin ciyaal yar ayay xitaa maxay ahayd toole ay u dhiibayaan computerka waxay leeyihiin hooyo computer islaam weyn oo af Soomaali ku hadlaysay sameeyeen hooyo leh mid leh walaal mid leh aboowe ayay sameeyeen af Soomaali in luqada computeradii ay ku xireen haddana saasay bilaabeen hal iska ilaaliyo cajiladooyinkana hal la share gareeyo wallahi waa wax xaqiiq ah ciyaalkiina ka celiya taleefanada idinkana iska ilaaliyo taleefanan inaan aqoonin ha qabanina hana ku celinina xitaa waxay isticmaalayaan taleefan kasta oo countryga ah kuwii UK jooga UK wala isticmaalayaan kuwii jooga maxay ahayd Sweden lambaradooda isticmaalkii Mareykan ayaa u isticmaalayaan sheekadaas ay biloween ilaa hadda ayay maanta xal ayay soo saareen ilaa iyo subaxan dad badan la arkay ay soo waceen is ilaaliya walaalayaal oo Soomaali meel kasta aad joogtiin gudbiyana share gareeya recording kan yar qof walba ha gaar ciyaalkiina taleefanada watana la hadla si ay uga digtoonaadaan. assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. horta aad ay u fiican tahay waxay u daneynaysaa dadka Soomaaliyeed waxayna markaas rabtaa in waxyaabo badan laga hortago laakiin ma sameeynin iyadu baaritaan fara badan ma sameeynin adigoo hada telephone technology ah in lagaga soo hindhiso cudurka ka qaado aniga ahaan horta ma aaminsani laakiin horta waxaa jirta annaga islaam baan nahay waa ka duwanahay dadka gaalada waxaana ugu duwanahay waxyaabo fara badan. ugu horena xataa waxaa jira cudur markii uu meel ka dilaaco rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo tilmaamay ducadan daawade ma ogtahay in ay jirto duco
laga akhristo cudurka coronaviruska. haddaan ku dhaho waa ay jirtaa, soo ii oran maysid inoo sheeg. ma og tahay in nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo 1400 sano ka hor na baray duco ka fiican talaal, duco ka hortagta cudurrada xunxun ee dilaaga ah? waxaa xaqiiq ah haddaba ducadan si niyad ah haddii aad u akhrisato in cudur xun noocuu doonaba ha ahaadee is arki maysaan. nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allaahumma innii acuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaami wa min sayi'i alasqaami. micnaha ducadan ayaa waxay tahay allow waxaa kaa magan galay baraska, waalida, judaanka iyo cudurrada xun. haddaba baraska waa cudur xun oo maqaarka ku dhaca, waa la yaqaanaa. waalida waa cudur maskaxda ku dhaca oo leh heerar kala duwan, noocay doontaba ha ahaatee. nebiga sallallahu calayhi wasalam ilaahay buu ka magan galay. judaanka waa cudur xun oo qofka muuq bedela, jarjara xubnaha bini'aadamka. xaqiiq waa cudur laga cabsado. cudurrada xunxunna waa fayrasyada, noocay doontaba ha noqotee ilaahay baa ka magan galinaaye. waxaa ka mid ah daacuunka, kansarka, coronaviruska iyo kuwa aanan aqoonba. marka aad ilaahay cudur xun aad ka magan gasho, ogow inuu soo hoosgalayo fayrus kasta sida kan hadda adduunka qabsaday. daawade, waxaan kugu bishaaraynayaa inaan ka duwannahay dadyooga kale, maadaama annaga aan nahay dad islaam ah. wax walibana rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam ayaa inoo dardaarmay. haddii aad dareento caqabad kasto, waxaa markaasi aad kaga hortagi kartaa ducooyinka rasuulka sallallahu calayhi wasalam inoo dhaafay. duco kastoo rasuulka sallallahu calayhi wasalam inoo dhaafayna waxaa lagu soo arooriyey kutubkan, waxaana loo yaqaanaa dhufiiska muslimka. kutubkan waxaad ka helaysaa sida marka cuntada la cunayo, waxyaabaha la rabo inaad dhahdo marka cuntada dhammayso, markaad seexanayso, markaad suuqa aadayso, markaad labisanayso, markaad rajo muujinayso, ducooyinkaad akhrinayso, markay wax dhibaato kugu noqdo ducooyinkaad akhrinayso. duco badan baa markaasi ku qoran xisnul muslim. marka waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doonto. sidoo kale waxaan isku dardaarmaynaa in qof walibo oo markaasi weyse qaadkiisa ku dadaalo, nadaafada jirkiisa ku si dadaalo, 5 salaadood xaadiro, ducooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiisto wax walibo isaga uu doonayo, iyo weliba in cudurkan ilaahay naga hayo. inta islaamana ilaahay cudurkan ha ka hayo, gaalada allah ku markaasi ku silado, cudurkaasina ilaahay ha ku ciribtiro. sidoo kale diinteena waxay nagu boorinaysaa in aan nadaafada aad ugu dadaalno. annadaafa shadrul iimaan. muuqaalkii aan ugu talagalay inaan markaasi ku booriyo ummadda islaamka meel kastoo dunida ka joogaan, gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed, waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin. haddii aad muuqaalkan ka hesheen, fadlan like saara, share gareeya, commentigana markaasi inagu dhiirigeliya si barnaamijyo xiiso badan markaasi aan soo diyaarino. aad baad u mahadsantihiin. barnaamijka xiga intaan dib ugu kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.